بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. إلهي بما هدو السمات مركب كوبات ربي تبارك وتعالى وحين وقمها العلين الآن نمعوين كبدلي ومن السيئي أن ترى له كوبي كريم. ولا ليال قلبتها وحا هلكن أن يسغوني بي يضصياد أركتان حريرها يفرديان أئمدي علمدي وحقرتك haweenkii iyo aqoon-yahankii magaalada Seattle Washington inaanu halkan ku soo gabagabayna caawa barnaamijkii gurmadka ee lagu gargaarayay walaalihii muslimiinta ahaa ee hantidooda ay ku gubatay suuqii weynaa ee ganacsiga waahayn ee ku yaalay magaalada Hargeysa. haddaba inta aynaan barnaamijka ku sii soconin waxaan jecelahay inaan halkan mahadnaq uga soo jeediyo bacda Allahi subxaanahu wa tacaala a'immada halkan hortayda fadhida iyo waxgaradka halkan fadhiya rag iyo haweenba leh oo aan ku idhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdigii labanlaabna ee aad ku bixiseen arrintan iyo damqashadii iyo dareenkii fogaa ee arrintaasi musiibada ee dhacday qalbigiinna ay gelisay Allah subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo. qofku markuu shay waajib ku ahaa guto lama yidhaahdo waad mahadsantahay oo laa shukra calaa waajibin, laakiin a'immada waxaan leenahay dhammaantood jazaakum allahu khayran fi dunya waalaakhira. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkii aad samayseen ha idinka abaalmariyo. reer Seattle ama dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan state of Washington waxay si naxariisi ku jirto kalgacal leh, garasho leh, gobonnimo leh, gooyn leh ay uga wada qayb qaateen dhammaantood, iyadoo magaranaysaa masaajiddu iyo maraakistu ay hogaaminayaan gurmadkaasi loo sameynayay lagu gargaarayay walaalaha hantidooda ay ku baabaaday dabkii halakeeyey suuqii weynaa ee waaheene magaalada Hargeysa. waxaan odhan karaa looma kala hadhin, qof waliba halkiisa ayuu ka dadaalay, qof waliba halkiisa ayaa dareenku ku taabto ugu tegey. midhihii ka soo baxayna insha allahu tacaala waynu arki doonaa waqti dhow oo aan fogeyn. inta aanan hadalka sii badin waxaan jecelahay inaan ku soo dhoweeyo sheekh Dr. Yaxya Suufi oo ah imaamka iyo mu'assiska markaskan barakaysan ee aynu joogno ee masjidu tawxiid ama MIFS, si uu 2 daqiiqo 2 kelimadood inoo yidhaahdo. falyatafadal sheekh mashkuuran ma'juura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليال وحيم هذا ذو سبناته الله سبحانه وتعالى الله النبوك الله ديستي نعمين كفرها بدنين كوبي كرهيني كدب وحان روائنا أمهد عليو لمان جالية صوماليات جالية مسلمين تكونوا قبل كواشنطن قارهان مقالة سياتل إلى واحد waan bogaadinayaa, waan u mahad celinayaa sidii walaaltinimada ku dhexnayd, kalgacaltinimada lahayd ay ugu soo istaageen walaalahood ay musiibadu ku habsatay
markuu gubtay suuqii weynaa waaheen Hargeysa waxaan leeyahay mahadsantihiin laakiin walaalayaal waxaan rabaa intaas ka hor inaan runtii xuso culummada iyo waxgaradka iyo dumarka hadda meeshaan fadhiyaad arkaysaan oo ay kaamiradu qabanayso in kaloo ayaga la mid oo maqano imaan weysay waxaa weeye bacd allahi caza wajalla ayagaa sabab u ahaa ayagaa dadaalka bixiyey waxaan rabaa inaan xuso habeen anagoo taraawiixda ku jirna ayaa waxaa ii yimid sheekh cali oo garabkayga taagan ma jecla in la yidhaahdo dhibkii baa dhacay annagoo meelaan ka bilaabnala ayaa waxaa ii yimid asagii wadaad xukun la dhaho ii yimid waxay ii sheegeen arrintan inay wax rabaan inay ka qabtaan waan u duceeyey sheekh cali waa markhaati buu ka yahay sababtoo meel loo maraan garan lahay waxaan idiin sheegaya walaalayaal sheekh cali ha ahaa asagoo ka mida dadka goobta wax gubashadu dhaawac ka soo gaaray xaqiiqatan ma uusan fadhiisanin boqolaal qof waa uu wacay dadku uu la xiriirana dadkay sii wacay juhdigii loo istaagay ay asalku ahaayeen masaajidda asalka u ahayd ilaahay subxaana wa tacaala miladhar wuu naga siiyey marka waxaan rabaa horta inaan sheekh cali jazaaka allahu khayran makarafoonkaad haysatay intaas dadka ayaad u mahad celinaysay waxaa lagu yaqaana waxbixinta wax aruurinta inta waa lagu yaqaana hawshaan adaa asal noogu ahaa culummadana waad ka mid tahay waxgaradkiina waad ka mid tahay hoggaanna waad noo ahayd marka in la sheego way fiican tahay qofka walaalka in la dhaho jazaakum allahu khayr wax kaloo karna ma lahan inaan ku dhaharaa waa maxsan tahay tan labaad waxaa la inaan u mahad celiyo walaalihii runtii markaska cusub inay dadka isugu yeeraan isla gartay culummada iyo dadka jaaliyada isugu yimid waxaan rabaa dhammaantiin hadha waa maxsan tihiin ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo ugu dambayntii walaalayaal waxaan rabaa inaan la hadlo walaalaha aan rabno inaan fariinta u gudbinno iyo walaaltinimada inagu xiraysa islaamnimada iyo dhalashada iyo dhiigga intaba iyo dhaqankaba waxaan leenahay waa idin jecelnahay dhibkii idin soo gaaray waan ka murugoonnay waan ka tiiraaniyoonnay jiif la'aantii idinku dhacday iyo mahooy la'aanta idinku dhacday aad baan uga xunnahay laakiin waxaan idiin rabnaa inaan idiin dardaarno isxasuusina dhammaanteen laa xusnun yaduumu calayka walaa suruuru walaa bu'sun calayka walaa rakhaa dhibkan iyo kulaylkan maanta idin qabsaday waa la sukayn imtixaamay marka waxaa idin leenahay walaali waad sabarteen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab adduunka allah subxaana wa tacaala ifka ha idinku tuso intaydan aakhiro tegin waxaan kaloo rabaa inaan meeshaan ka mahad celiyo oon rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo lacagihii la aruuriyey hay-adda qaadaysa oo walaalaha laisla gartay oo lagu aaminay oo ballan qaaday inay nafteeda u hurto maalka la qaadayna sidiisa ay ku geyso haro waxaan leenahay uu nagala joogo cali nagala joogo waxaan leenahay cali xaaji waad mahadsan tahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ku xifdiyo waadna mahadsantihiin dhammaantiin mar kale culimmada waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin khayr allah idin siiyo wixii gafoo naga dhacay ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbalo wixii wanaagaan qabanna ilaahay subxaana wa tacaala ha naga aqbalo oo gafkeennana ilaahay subxaana wa tacaala noo dhaafo waayo ilaahay subxaana wa tacaala salaadiis marka u tukano astakfirullah bacda salaadahna macnaheedu waxaa laga dadka inaysan gafin laakiin insaanku wuxuu leeyahay mar walba gaabin marka gaabintii naga dhacday ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu dambi dhaaf nooga dhigo jazaakum allahu khayr دكتور شيخ يحيى aad iyo aad buu mahadsan yahay runtii juhdiga waa la wada lahaa qof gaar u lahaa ma jirin cid gaar u sheeganaysaana ma jirin hadday tahay fardan wa jamaaca waana waajib ina wada saarnaa arrintaasi waxaanu si gaara ugu mahad celinaa maraakista iyo masaajidda iyo a'imada gacanta ku haysa dhammaantood waxaan jecelahay inaan u yeedho دكتور شيخ محمد إلهي oo ah imaamka iyo odayga masaajidka iyo markaska al-nuur si uu 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo kalimaad kooban halkan inooga yiraahdo falyatafadal sheekh mashkuuran ma'juura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم أخوتي الأعزاء هل كان هذا البدن مباهنا وأن محوها مهضنق يوريجين يعني قبل نجي يوريجين طبعا بيوصلنا مركو هرب خلينا هاي إلهي هاي نجا أكابر مريض كي هوش بصورة محوها صوم عمري إلهي أكابر مريض
waxaynu isugu nimidna waxa weeye dhibaatadii dhacday ee ka dhacday muxuu ahaa suuqeenni weynaaye waaheen ka dhacday ee walaaliheen ku dhacday oo imtixaan ahaa iyaga imtixaan u ahaa si sabirkooda iyo hawshooda loo eego innagana imtixaan inoo ahaa si laynoo eego bal waxa weeyaan dareenkeennu sida uu noqday hawshaa imtixaan inoo ahaa inaynu waxa weeyaan falceliskeenii aynu inagu ka falcelinay qadiyadda maanta aynu halkan ku wareejino iyaga waxa weeyaan waynu arkaynay walaalaha ay hawshaasi qabsatay yacni waxa weeyaan dalkii iyo dhibaatadii dhacday waxay soo saartay duntooda wanaaggeeda dadka waad arkayseen يعني يجوا دبعات قصتي وكحكوا كذا حوي مو هاي تكون هي لا إله إلا الله شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص والثمرات وبشر الصابرين هذا الكذوب هو ها إلهي بحجسيه لي وحوي يعني بحب شعر ساكو وكي مسجد وشعرني إن لله وإنا إليه راجعون لما تضح إلى هاي وحوي إلهي كبر المسيح ونصيني إننا نحن نجمع يسوي عندنا وحنا بنتسني إلهي يكون مهديين ما دام إلا فوز بعدين أنا وشاص لكن النجع يا وحويا إن هو حكي نقبل علينا نقبلنا وحين نقبلنا ناي وحنا نقوم نشتغلنا معه وحقبلنا ينا معه وأون وحين مجنس حصوص إننا حصوصنا إننا ندرين وذاكنا إننا نحب ذاكنا مجنس لكن قفنا وحنا قبلنا يسوي حين ما نتقررنا إيه وحين تتكلم بيجيبا وحنا قبلنا لكن هذانا حصوص ده يجي جوجين تأسيبه وشيء بين وحين إلهي نقبل مرني ويا عمل عقبت خاصة وفضل بدن رسول كريم عليه الصلاة والسلام عليه يعني وحوي ضدك إلهي وجعل هي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب المسلم وحوي عمل ضد إلهي وجعل هي وضدك واحترى لما كان يبتي ما طلب معها احترى ركعك عمل إلهي وجعل هي كوحوي يعني قف ولا أو بها شيء وأدين معها قلبك سبحانه جلسه مدينة كبيسة مجاجات كبيسة أما اللي بهالي أديها كبيسة إخوتي وركا حوي وحن آذب محمد قينا ضدكي هوشن بلعبي أو كوكي ولا كي يقرب جوجل شعالي يعني وحوي خير الله سيه معلنتي أي هوشن يدعي بيسا قولي ضدكي أي طابتي هوشن حاصلة وشيء دكتوريا حي وشيء وحن ضدكي وكعبي هاي مركز النوان محمد علمينا يعني هوشن وقود بدن سجع قرتي مراكز تكل يبنا وحويا شيخ أحمد إمام كينا مركبة كحول قالنا أدنى محمد قينا يعني وحويا لو ما كان هذا فعلا درين هو يعني لقى من الإسلام قف هذا كل جوجا كم مساجد جوجا كم مركز جوجا عندي الدنيا هاتي الصومالي ما أنت درين كاسمش هو نلو ولا درين وحكبنا أنت لكريمي واللي بوا ترين أنت أصلاً يدنا يعني هاي لما هذه مضن هي ده هروي هذه برضو تاجن سماح وتاجن كجار كمان هاي تاجن أو ما أنت إذا صارتي إلي وحويا وحال أولوي يدو أي كاتو أولي وحويا أنا شيء كلفين تقدر أي بوسنا يعني يوريك يعني مريك أورونيا وحال الله شيء إن يجوز كبحريان تجد يعني يقول تجد يعني يقول تجد كاس كده بريان وحول عن عندنا لجهري وهي تكاليف ما قصعتها حفيزة وفرا أو لا قصعتها لكن إنه لا تقفكي وحوي وحصل إنه أنت ولية وهو شو قوانية منكينية يبني لما هذه يمضيه لا يكابل مريو إخوتي وحوي ولا لها كليه دمر يركب له كجارين ما هو شاك كهول قلنا دون المهندرين إلهي أكتسنا وتعالى ومدى أكتسنا وتعالى ولا لها ما حد كجارين وحلينا هاي إلهي بعيدنا عوضي أنا بس وحوي دريك من دريمنا وحا حد كايد دعينا أنا كنا متعاطي واي وحوي جتني لنا هاي ولا لنا هاي وحوي وحي إذن حنونيا ونحنونيا إلهي ذك عوضه وتجد سجاد كل لما وضع كمان كرو لكن واحد سنة إلهي ما كوري بديسي سدعتي لكم الشيكتين هذا نوجوها ونادي سدنا وهذا هل دونتا ضد شقانة هنا شقيستا أو عن وحوي ميل مستيجوغاني الجروب قصصا مرتبط يعني وحوي ككبتا مركا إلهي أنا خير كنا وفتيو أتبعنا المرة بعدين مصر حاضرين يكون مهاب عنية شغالين ناس جارا من العني وجزاكم الله كل سنة ورحمة الله وبركاته. جزاك الله أحمد نور إمامك يا أضيع مركز الهدى إسلامي سنتر يقصر دوين لها إنه كلمات حلقا كإلى هذا إن شاء الله تعالى فليتفضل دكتور. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mahad dhammideed ilaahay bay subxaana wa tacaala u sugnaatay kadibna jazaakum allah khayr arrinta salaata aynu caawa halkan gabagabeeda joogno walbahaarkeedina weli iska leh
iyo xanuunkeedii maadaama walaaladana weli ay cidlo fadhiyaan waxaa weeyaan laakiin ilaa meeshaa la soo gaadhsiiyey in wax la wareejiyo oo wax la ysu keeno oo in laga danqanayo la tuso ilaahay ina waafajiyeyna wuu mahadsan yahay runtii maalinba maalin bay joogtaaye lacagta ugu badan ee Washington State laga ururiyey markaskan dadkii isugu yimid ee loo yeeray ayaa bixiyey habeenka iyada hadal yar baan oo ku soo laba celinayo aan meesha ka soo jeediyey oon arko in laga soo jawaabay runtii waxay ahayd fatahaadii 2019 ka dhacday Hiiraan ayaa loo kulmaday magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka yimid 20 gaari oo gawaarida candhamaylaha loo yaqaan oo gawaarida xamuulkii aad u waaweyn marka ninka qaadiid la yiraahdo Abuukar Cawaale waa ninka Ingiriiska qaad ka jaray wayaan Ilaahay ka sago subhanahu wa ta'ala Ilaahay ku kaalmeeyay ayaa intuu farxay markuu arkay gawaarida intaa leeg ee sayda wata ee Hiiraan ku sii jeeda ayuu in yar oo tixa buu halkaa ka jeeday wuxuu yidhi hilka Hiiraan ninkii ka hara haybta kuma jiro runtii habeenkaas waa taariikhdii intii aan wax ururinaynay dad Soomaaliyeed oo cadad intaa leeg oo isugu yimaadoon haddana ruuxan wax bixin meesha ka tegay oo habeenkan arkay weeyaan runtii taasna waxa weeyaan sida ay hilka Hiiraan cidna uga harnay anigoo hadda dhinaca Hargeysa u jeeda ayay tusaale ka tahay runtii waxay tusisay oo bishaaro ka tahay suuqaas weyn oo arki doono Ilaahay idinkiisa isagoo sidiisa hore ka weyn isagoo sidiisa hore ka nadaamsan isagoo sidiisa hore ka qurux badan magacana laga bedelay Ilaahay idinkiisa inuu Ilaahay u tuso waayo ummadda Soomaaliyeed say uga danqatay ayaa inay meel ku dheelman doonto aan aragnaa meel ku dheelman doonto inay waxtar weyn halkaa iman doono Ilaahay idinkiisa dadkii ka soo qayb qaatay culimada masaajidda ee Sheekh Ali Garaad Sheekh Axmed Nuur Dictorka Masjidka Abubakar imaamkiisa oo intaa runtii lacagta carabkii ururinayay carabkiisa asugo ururinayay ahaa iyo dadkii kulligood hay'adaha la sheego oo dhan gawaarida wada haweenka gabdhaha runtii gabdhaha Soomaaliyeed ee ka fiican ragga runtii oo lacagta u badan iyagu keeneen khayr Allah siiyo ruux kasta oo wax u deeqay oo wax ku daray masaajidii istaagtay maraakiistii kuwii jumca qaatay kuwii tarawih qaatay dadkii fardiga u isu taagay waama kala harin magaalada Washington State taariikh cusub ay dhigeen runtii oo horay aan loo arag waana dhibku intuu leekaa iyo sidoo waayo taariikhda Soomaaliyeed waxyeelay intaa leeg oo dab soo gaaray weli lama ay waa tii koobaad weeyaan waxyeelay intaa leeg oo dab geystay tii koobaad weeyaan markuuna inaguna jawaab dabka u qalantay inaynu jawaabno waan la jawaabi doonaa jawaabtuna weli kow ma joogto intii wax bixisay intii halgantay intii dagaalantay intii orday intii dadka ka danqatay markankaanto oo meeshii lagu maalintii horreysayna wax lagu qaatay go'aankaasa lacagta u badnayd in lagu soo ururiyey sigaar iyaguna way mahadsan yihiin Sheekh Ali Garaad oo xubintii isku xidhaysay waxaasoo dhan oo u taagnaa runtii shaqadiisiina u joojiyey u mahadsan yahay intii ku kaalmaysay baa arrintii waday oo jazaakumullah khayr waad mahadsantihiin wax kale meesha laga yidhaha ma jiraan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uun hawa aqbalo dadka waxay la baxeen Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah u barakeeyo iyagana kuwa dhibaatada soo gaaray Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah u boogadhayo wixii ka baxay wax ka wanaagsan oo ka khayr badan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu bedelo sabarkana Ilaahay ku irsaaqo magaaladaas iyo suuqaas oo camiran Ilaahay idinkiisa Ilaahay na tuso oo sidii hore ka qurux badan saas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh halkan kalimaad uga soo jeediyaan isu kay qaban maysa insha Allah tacaala waxaan jeclaan lahaa inaan bal gabdhaha gabadh ka mid ah mayga u yara dhiibo si ay laba kelimadood u tidhaahda insha Allah tacaala idinkoo raalli ah gabdhaha gabadh ka mid ah haddii ay kelimad odhanaysa insha Allah tacaala soo dhawaato haddii kalena waynu ka soconayna maadaama waqtigii afurka la joogo insha Allah Zainab Xasan warsame insha Allah tacaala kusoo dhawo وبركاته والسلام يا شيوخ ذي قبلها من شوبة ما شاء الله تبارك الله ده تعب بدي غير سياطة ونقل مغني رضي الدمر ما شاء الله
walaalahood la dareena ayaa halkan maanta dee intii maanta time heshay timi waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin wada saara dhammaantiin laguma kala hadho siyaata wadad wanaagsan oo aan ku kala hadhin waxbaba waxa ay waqtiga nagu yaraan leeyahay waxaan kula dardaarmayaa dadka ka mas-uulka dadka masaakiinta ee maaragtay meel walba looga gurmaday inay si xaq darra amin xaq ah dadka waxooda u gaarsiiyaan oo dadka mar walba aan daawanayna ee tiifiyada ka hadlaya ay xaqooda siiyaan aadna ay ilaahay uga baqaan waayo qofkii xaq qaaday ee waxaasoo maaragtay mas-uulo qaaday dee aakhira dambaysa tina waa laga tegayaa qof walba aakhira u tegaya waa la dhimanayaa marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay shuyuuqdana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo ilaahay ha idinka qabto wax alla wixii dhib idinku haya aadna waan idin wada salaamay dhammaantiin hawla iyo inamaba waxaan idin leeyahay dhammaantiin ilaahay subxaana wa tacaala reer siyaatalla waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala qof walba miisaanka xasanaadka ha u saaro ubadkooda iyo guryahooda iyo bisnisyadooda loogu barakeeyo waxay la baxeen qof kastoo jahdi geliyey iyo qof kasta u soo wadaba waanu dadaalayna intaaynan ka badina waanu rabnay laakiin daba taagtigu rogmadaa insha allah biidnillah meel kastoo looga kacayna waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka dhammaantiin idiin saaro waan idin salaamay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu zaynab waxaynu jecel lahay inaynu soo gabagabayno afurka dartii waxaynu insha allah tacaala wareejin doonaa lacagtii aynu soo ururinay ayaynu si simboolika ugu wareejin doonaa insha allah tacaala walaalkeen maxamed xaaji oo ka socda hay-adda haro oo gaadhsiin doonta cali xaaji cafwan halmaan hadalka kuma jiro oo gaadhsiin doona dadkii aynu u ururnay lacagtaasi dhibaatadu ay soo gaadhay waxaa ku wareejin doona insha allah tacaala arrintaasi oo ay mas-uuli nooga wada ah dictoorada halkan iska xigay afartaa insha allah tabaaraka wa tacaala oo ugu horeeyay imaamkeenna magaalada sheekh doctor axmed nuur oo ah odaygeenna insha allah tacaala iyo imaamkeenna isagaana aan rabaa inuu guddoonsiiyo insha allah tacaala oo odayaashana uu hormood u noqdo waxaa la guddoonsiin doona insha allah tacaala sidoo kale dictor sheekh yaxya dictor sheekh maxamed iyo dictor sheekh axmed oo isaguna sheekh maxamed iyo afartaa dictores dhinac fadhiya ayaa wareejin doona insha allah tacaala laakiin marka koobaad waxaan kusoo wareejinaya imaamka insha allah tacaala sheekh axmed nuur fadhiya tafadal si aad arrintaasi adigoo wakiil nooga ah insha allah tacaala الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalaha goobta jooga rag iyo dumarba walaalaha nagala socda miidiyaha walaalaha kelimadayadu ay gaadhi doonto waxaad u jeedaa galabta markhaati ka wada tihiin insha allahu tacaala gurmadkii reer Seattle Washington oo muddo bil ah waxaan u malaynaa habeenkii bisha Ramadaan kow ay ahayd ayay hawshaasi dhacday daana khaldanayn caawana Ramadaan ayaa 26 ah intaas waxaan markhaati ka ahay inuu gurmadkaasi socday oo habeen aan laga nasanin oo xalay iyo maanta ugu dambeysay ay socotay ururinta lacagtaasi haddana ay weli socotaa runtii sheekh cali garaad ilaahay khayr siiyo sidaa la wada xusay arrintan udub dhaxaad buu ahaa isku xidhaha guud iyo munasiqa guud buuna uu ahaa qayb aad iyo aad u weyn buuna ka qaatay isagoo oo shaqooyinkiisii u joojiyey welibana runtii ku jirana dadka mutadaririinta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan wax badan ugu ducaynaynaa wixii ilaahay u reebayna u barakeeyo wixii isaga iyo walaalaha ka dhumayna samir iyo iimaan kulligood baa ka wada siiyo waxaan rabaa un markhaati ka ahay magaalada Seattle Washington intii aan joognay aan wax ururinaynay
barnaamijka ugu weyn oo magaaladaasi u wada kacday oo deeqdii ugu weyneedna laysu keenay waa hawshan ka dhacday ee Hargeysa suuqii Waaheen iyo walaalaheenni wax ku waxyeeloobay ee hantidoodu halka ku baabaaday sidii culimadu sheegeen waxaad ogaataan walaalihiin oo idin jecel baan nahay waxaad dareenteen baan idinla dareennay habeen iyo maalin idinkama naanasanin ilaahayna waxaan idin baryaynaa subxaana inuu bedel ka khayr badan u isiiyo insha allahu tacaala haddana insha allahu waxaan wareejinaynaa jeegii culimadu ha soo istaagaan la magac dhabay doctor Axmed doctor Maxamed doctor Yaxya iyo Sheekh Cali soo istaagay Sheekh Cali Xaaji إمام إن شاء الله شغال حاج ووكيلك هيئة هرو جاك مصفى سوقته جاك العقد شغالي ما شاء الله شغال قومها أمانة بس جاك عدو جدا سيد المقطرات سيارة واشنطن والله بقول يصدح كن سديد بقول يتضباطا سيدا صوما oo dollar way 200 kun way 200 kun 203 kun 870 dollar way alxamdulillah waxaan ugu badnay sida sheegnay waxaan rabnaa inaan marxaati gelino dadweynaha inaanu fariina gaarsiino guddiga loo xilsaaray ee culimada garanayna ku kalsoonahay ammaana idinku tahay inaad si cadaalad ah hawsha u gudataan tan iyo waxaan rabaa oo kale inaan dadka u sheego hawshaan reer Seattle caawa ka soo baxday intaan keliya ma aha Maraykanka oo dhan bay ka soo bixi doontaa wafdi culus baan idin soo gaari doonaa jeeg culus baan iman doona biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynayaa inaan Sheekh Cali Xaaji aan ku wareejino ammaanadaana uu naga aqbalo insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إخواني في الله رمتي دمان وحن سلامة يا قدك شرفت له علماء دكاترتا رمتي وسحل ساعتي إن أهرتان كقبطان شقا وعن ورسالتك هذه نعاوة جوجنو ولو بقول يسدحكم سديد بقول تضباطا أي استيدك كصوروريان أو كن haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaan rabaa inaan idin sheego in aan ammaanadan annagana aad nagu ducaysaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu nabadgeliyo waxaana ballan qaadaynaa inay siday tahay aan u gaarsiino ayada oo wax jaaj ah iyo wax la dul saaray iyo wax kale aysan jirin hay-adda hadda kalima aha marka ugu horreysay oo shaqooyinkaan qabato aniga hadda laba wiil ka hor baan Hargeysa soo maray anoo ka imid Jigjiga oo abaarihiiga ka soo shaqeynay 15 sano hay'adda jirtay alxamdulillah shaqooyin aad iyo aad u qiimo badan ka qabanay tan mid ka mid ah weeyna shaqooyinkaas waxaan ballan qaadaynaa amaanada siday tahay u gudano tacaala qabla kulli shay mar labaad waxaynu mahadcelinaynaa culimada aimada iyo waxgaradka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Seattle Washington ee sida gobonimada iyo garashada leh uga qayb qaatay gurmadkii loo fidinayay walaalihii dhibaatada ay ka soo gaadhay dabkii ka kacay suuqii weynaa ee Waaheen ee ku yaalay magaalada Hargeysa bilowgii bisha Ramadaan walaalayaal insha Allah tacaala amaanadii aan noo dhiibteen ee annaguna hay'adda hore ku wareejinay waxay u tegi doontaa insha Allah tacaala sida mutafaqa lagu wada yahay aan isku wada waafaqsanahay guddida ganacsatada iyo culimada ee loo igmaday inay garanaysaa ururiyaan hantida ka timaada dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay adduunyada ka joogaan tani markaasi ama deeqdani waxay gaari doontaa si gaarana ay u dhici doontaa aqoonada ay leeyihiin guddida wadaadada iyo ganacsatada ee gurmadka suuqii gubtay ee Waaheen insha Allah tabaaraka wa tacaala halkaasi ayaynu u diraynaa halkaasi ayaynu caawa ay lacagtiinii tegaysaa waxay gaari doontaa insha Allah tacaala dadkii aad ugu tala gasheen ee dhibaatadu ay soo gaadhay waxaana rajaynayaa inay markay arkaan inay aad ugu farxi doonaan sidii aad uga damqateen dhibkooda markay arkaan deeqdiinii oo soo gaadhayna ay ku farxi doonaan dareemina doonaan walaaltinimada
ka dhaxaysa iyaga iyo idinka iyo inagoo dhan dhammaanteenba mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay walaalayaal dadka Soomaaliyeed ha la ogaado hal mid meel kastoo ay joogaan waxa ku saabsan siyaasad iyo waxaasi ma ka hadlayno mana faragelinayno laakiin mar walba waxa ka dhaxeeya ee isu keena ee isku xidha ee isugu damqadaan ayaa ka weyn wax kastoo ay isku khilaafsan yihiin culimada maanta halkan joogta iyo dadka reer siyaadada midaysay ee isu keentayna waxa weeye waa dareenkay dareensan yihiin walaaltinimada soo jireenka ee lama taabtaanka ah ee ka dhaxaysa ee isugu damqanayaan taana waxaa ka sii sarraysa caqiidada ka dhaxaysa ee ay wadaagaan oo ah mid walaalayaal wax walba ka sarraysa oo laga horumarinayo marka taas ayay ka dhalatay arrintan aad arkaysaan iyo mid badan oo kale oo soo socota gobollada Maraykan oo dhan baa arrintan laga wadaa insha Allah ta'ala waa midhihii iyo juhdigii ka dhashay dadka akhyaarta aimada idin hor jooga iyo gabdhaha iyo dadweynaha damqashada iyo dareenka ay ka qaadeen dhibaatadii dhacday waxaynu ku soo gabagabaynaynaa mar labaad aima waa mahadsantihiin وجزاكم الله خير وجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم أيام لله نهاية أمانتي إن الله لي أنت كقيب قادتي خاصة وحنا كلمات خاصة أقدر يا ولا لها متروقة خير بدن بان إذا كبر أنا خير في أصوات التنوان السوق علي إلى سبحانه وتعالى هذه بركة يوم سخاصة تعام كان وحنا أقدر أن أمانة بينها الصومالية كله الاستيت كوردن ولا لها نسكان بالمسي دعينا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم waxaan marnaba la ilaabi karin kalimaadkan meel may gaadheen haddii aanay maaragtay jiri lahayn raggan kamaradaha haya ee maxaan ku idhaahdaa in la hortaagan oo maaragtay khayr allaha siiye khayrka mar walba ka qayb qaata iyagana waxaynu leenahay baaraka allahu fiikum waqtigiina aad gelisaan had iyo jeer khayrka ilaahay idinka abaalmariyo ilaahay idinku